السلام عليكم. soo dhawaada saaxiibayaal. waxaan nahay Xasan Cabdullaahi Xuseen. waxaan maanta idin soo diyaariyay saaxiibayaal sheeko aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan nin lagu magacaabo Mr. Fruit kaasoo ganacsada ah qiyaamana macaamiishiisa. sheeko run ahaantii maanta aad la dhici doontaan baan idin soo diyaariyay, balse inta aan sharaxaad u guda gelin saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin sheego warmayahow macashirada aan soo gudbiyaan xiiso lahayn mise aniga u maleeya bal qaybta commentiga igula soo wadaaga sababtoo ah casharada aan halkan ku soo gudbiyay tayadooda wad aragteen dadaal iima yara falcelintiinana waan saluugsanahay saaxiibayaal. casharada aan halkan soo geliyo labada kanaal kala ma liitaan tayadooda iyo diyaarintoodaba falcelintooda inta qofeel la gareysa yani aad bay u liidataa run ahaantii saaxiibayaal. marka dadaal iima yara falcelintiinina aad baan u saluugsanahay. marka maanta bal halka wax ka khaldayna commentiga igula soo wadaaga. sheekada maanta aan idin soo diyaariyay run ahaantii waad la tacajibi doontaan. sheekadan iyadoo PDF ahna waxaan idin soo gelinayaa groupka Telegramka halka ka soo degsada. waa kana PDF-kii bal qaabka aad ku soo diyaariyay arag. waa kaas waxa ay ka kooban tahay ilaa iyo sida halkan kaaga muuqata ilaa iyo 4 page bay ka kooban tahay. waliba xitaa anigoo u damqanaya dadku isku wada mid maahan. dadka qaarkiis kalarka cadaanka waa uu dhibaya sida halkaas u jeedo kalarka baan ka soo dhigay si dadka akhrisanaya ay ugu raaxaystaan uusan indhaha uga dhimin. marka aniga dadaal iima yara saaxiibayaal ee bal falcelintiina wax ka bedela insha Allah yaan la isku halaynin. dadka qaarkiis casharada way download gareystaan kanaalkana ma subscribe gareeyaan muuqaalkana ma la gareeyaan taasina saaxiibayaal aad bay ii niyad jabinaysaa. so anigu waan dadaalayaa idinku ha ila gaabina insha Allah aan u laabana casharkeena. and very interesting history sheeko aad u xiiso badan about Mr. Fruit ee ku saabsan ninka loo yaqaano Mr. Fruit ayaan maanta idin wadaa saaxiibayaal. it's Monday morning sheekadu waxay ku bilaabanaysaa it's Monday morning waa subax isniin ah. everybody cid walibana is at the market suuqa ayay joogtaa. the market suuqu is busy waa mashquul. today maanta there is a new man waxaa jira nin cusub at the market suuqa maanta suuqa nin baa ku cusub. his name magaciisuna is waa Mr. Fruit ayaa la yiraahdaa. Mr. Mirole yani miraha qudaarta oo dhan marka la isku daro mira baa la iska yiraahdaa. his daughter gabadhiisa ayaa is helping him isaga caawinaysa. her name magaceeduna is Sarah. Sarah ayaa loo yaqaanaa gabadhaas. Mr. Fruit ninkan Mr. Fruit leeyahay says waxa uu leeyahay good morning subax wanaagsan to everybody cid waliba ayuu ku leeyahay. my fruit is fresh mirahaygu waa fresh yani waa nadiif. my fruit is cheap mirahaygu waa raqiis. marka Mr. Fruit is polite waa nin asluub leh. polite meel ku qoro waa asluub leh. everybody cid walibana likes way ka heshaa Mr. Fruit oo way jeceshahay. everybody likes cid waliba way jeceshahay his daughter gabadhiisa. everybody cid waliba says waxa ay leedahay she is a nice girl iyadu waa gabar fiican baa dadka dhan leeyihiin. waa yahay school boy wiil iskooley ah ayaa asks waxa uu weydiinayaa for 1 kilo of apples 1 kilo oo tufaax ah. markaan beeci ayaa bilowday waxba laga iibsanayaa. Mr. Fruit ayaa puts waxa uu dhigay ama ku riday some apples dhowr tufaax on the scale miisaanka. the scale miisaanku shows waxa uu muujinayaa 1 kilo and 100 grams 1 kilo iyo 100 gram ayuu muujiyay. waxaana laga rabay 1 kilo oo kaliya. halkan waa halka uu qiyaanada ku sameeyay. but laakiin Mr. Fruit takes away wuxuu ka qaaday miisaankii wuxuu ka qaadayaa 1 apple 1 tufaax. marka miisaan badan baa baxaya. now hadeer the scale miisaanku shows waxa uu muujinayaa 900 grams 900 gram uu muujinayaa 1 kilo ayaana laga rabay. haye marka wuxuu sameynayaa meesha cabir sax uu ka iibi lahay 900 ayuu ka iibinayaa oo gram wiilkuna waxa uu rabay 1 kilo. haye but laakiin Mr. Fruit says waxa uu leeyahay 1 kilo of apples 1 kilo oo tufaax ah $1 waa $1 uu leeyahay. yani 1 kilo kama iibinayo 900 gram wuxuu ka siinayaa $1 wuu qiyaanayaa. he takes waxa uu ka qaadaa $1
from the school boy wiilkii iskuuleyda ahaa. Sarah gabadhiisii waaye is watching waxa ay daawanaysaa her father aabaheed ayay daawanaysaa. She sees waxa ay aragtaa everything wax waliba. A young woman haweeney da'yar ah ayaa asks waxa ay weydiisay waxa ay weydiinaysaa for 2 kilos of oranges 2 kiilo oo orange ah ayay weydiisay iyana wuu qiyaami doonaa. Mr. Fruit ayaa puts waxa uu dhigay some oranges xoogaa orange ah on the scale miisaankii. The scale shows miisaankii waxa uu soo bandhigayaa 2 kilos and 200 grams 2 kiilo iyo 200 gram 200 dheeri ku ah 2 kiilo ayay rabtaa. Marka 200 marka uu ka jarayo ayuu hal orange weyn ayuu meesha ka saarayaa miisaan badan baxaya marka. Mr. Fruit takes away waxa uu ka qaadayaa 1 orange hal orange ayuu miisaanka ka qaadayaa. Now hadeer the scale miisaanku shows waxa uu muujinayaa 1 kilo and 800 grams 1 kiilo iyo 800 gram waxayna gabadhu ka rabtaa 2 kilos 200 gram halka ku maqan. But laakiin Mr. Fruit says waxa uu leeyahay 2 kilos 2 kilo of oranges orange ah $2 waa $2 buu leeyahay. 2 kiilahan wuxuu uga gadayaa 1 kiilo iyo 800 gram. He takes waxa uu ka qaadaa $2 from the young woman haweeneyda da'da yareed. Sarah sees everything gabadhii Sarah ahaydna way aragtaa wax waliba. waayahay maalintii xigta it's Monday evening waa fiid isniin ah. Sarah's father Sarah aabaheed is counting waxa uu xisaabsanayaa his money lacagtiisii. He is happy wuu faraxsan yahay but laakiin Sarah is not happy Sarah ma faraxsana. She is angry way caraysan tahay. waxay leedahay father aabe you must sell waa inaad iibisaa the correct weight miisaanka saxda ah waa inaad iibisaa. Correct waa saxda ah. You must not cheat waa inaadan qiyaamin our customers macaamiisheena. Our customers macaamiisheenu are poor waa sabool. marka buu leeyahay but laakiin we are also poor Sarah inaguna sidoo kale waxaanu nahay sabool Sarah. My wife xaaskaygi is dead waa ay dhimatay. You have no mother hooyo malihid. I have no sons wiilal malihi. I have no malihi sons wiilal malihi. You have no brother walaal malihid. We must make money waa inaan lacag samaynaa. Sarah waa inaan lacag samaynaa. That's life taasi waa nolol buu leeyahay. marka bilada I don't want ma doonayo to work inaan ka shaqeeyo at the market suuqa. Father aabe inaan suuqa ka shaqeeyo ma doonayo. marka buu leeyahay you must work waa inaad ka shaqeysaa at the market suuqa. We must live Sarah waa inaynu noolaanaa. We must eat waa inaynu cunaa. erga must waa inaynu wax qasab ah waay. We must eat waa inaynu cunaa. You are a child cunug baa tahay. You don't understand ma fahmaysid business ganacsiga ma fahmaysid. You are a woman waxaa tahay haweeney. Women haweenku don't understand ma fahmaan business ganacsiga ma fahmaan. It is Tuesday morning waa subax talaada ah. Today maanta Sarah's father Sarah aabaheed is selling waxa uu iibinayaa the correct weight miisaanka saxda ayuu iibinayaa maanta. He is honest waa daacad. He takes waxa uu qaadayaa the correct money lacagta saxda ah. Sarah is happy today Sarahna way faraxsan tahay maanta. She is proud waa ay ku faanaysaa of her father aabaheed. The customers macaamiishu are happy too sidoo kale way faraxsan yihiin. They buy waxa ay iibsanayaan a lot of fruit badan bay iibsanayaan mira fara badan. waxayna leeyihiin your fruit mirahaagu is cheap waa raqiis and fresh waana nadiif. Customers macaamiishi ayaa say waxa ay ku leeyihiin to Mr. Fruit ayay ku leeyihiin. but laakiin in the afternoon galabkii some customers qaar ka mid ah macaamiishi ayaa come back soo laabanaya. They are angry iyagoo caraysan. An old man nin duq ah ama da'ah ayaa brings back wuxuu dib u soo celinayaa. bring back waa dib u soo celid some apples xoogaa tufaax ah. One of his apples mid ka mid ah tufaaxadiisa is bad ayaa xun. A girl gabar ayaa brings back waxay dib u soo celisaa iyana waxay dib u soo celinaysaa some oranges xoogaa orange ah. One of her oranges mid ka mid ah orangeskeeda is bad ayaa xun. A woman haweeney brings back waxay dib u soo celinaysaa some bananas xoogaa moos ah. One of her bananas mid ka mid ah mooskeeda ayaa is bad xun. It's black waa madow mooska ayaa madow ah wuu ku qiyaamay. And full of worms eragan meel ku qoro waa tixri ayaa la yiraahdaa. And full of waxaana ka buuxo worms
worms ayaad ugu dhawaaqaysaa worms tixri ayaa ka buuxo mooskii markaabi waxay ku leeyihiin look firi Mr. Fruit your fruit mirahaagu isn't fresh nadiif ma ahan today maanta waxaynu doonaynaa our money back lacagteena dib inaan ugu soo celiso waxaan doonaynaa our money lacagteena back dib baynu u doonaynaa but laakiin Mr. Fruit does not listen ma uusan dhagaysan to his customers macaamiishiisii he does not give them ma uuna siinin any money wax lacag ah you are dishonesty daacad matid dishonesty waa honesty oo daacad ah dis haddii lagu daro waxaa daacad matid you are dishonesty father aabe daacad matid Sarah says Sarah ayaa sidaa dhahaysa you are cheating waxa aad qiyaamaysaa the customers macaamiisha I don't want ma doonayo to work for you inaan kuu shaqeeyo I don't want ma doonayo to work inaan ka shaqeeyo at the market suuqa Mr. Fruit says Mr. Fruit markaa wuxuu leeyahay but laakiin you must work for me waa inaad ii shaqaysaa Sarah I have no family wax qoys ah malihi I have no malihi ama ma haysto family qoys ma haysto I have no wife xaas ma haysto and no sons wiilna ma haysto children carruurtu must help waa inay caawiyaan their parents waalidiintooda you are my daughter Sarah gabadhaydii you are my daughter gabadhaydii baa tahay Sarah you must work for me waa inaad ii shaqaysaa markaa bay ku leedahay no father maya aabe I don't want ma doonayo to clean inaan nadiifiyo your house gurigaaga I want waxaan doonayaa to leave home inaan guriga ka tago I don't want ma doonayo to cook your food inaan cunadaada kariyo I want waxaan doonayaa to get inaan helo a good job shaqo wanaagsan I am not going ma doonayo to work for you inaan adiga ku shaqeeyo Sarah's father Sarah aabaheed is angry waa uu xanaaqsan yahay go to bed aad sariirtaada he shouts ayuu ku qaylinaya at her iyada Sarah goes waxay aadaysaa to bed sariirtii she is lonely waa keligeed she is unhappy ma faraxsana she says a prayer waxa ay leedahay duca bay dhahaysaa waxay leedahay please help me fadlan icaawi please help my father fadlan caawi aabahay please help us fadlan nacaawi what I am going to do maxaan doonayaa inaan sameeyo oh Allah ya Allah I need your help waxaan u baahanahay caawimaadaada ereyada bay ku celcelinaysaa iyadoo sariirteeda joogta kadib maxaa dhacaya it's Wednesday morning waa subax arbaca ah everybody cid waliba is at the market suuqa ayay joogtaa everybody cid kasta is laughing waa ay qoslaysaa something is strange waxaa dhacaya strange waxaa la yiraahdaa wax aan hore loo arki jirin yacni shisheeye baa la yiraahdaa dadka markay tahay shisheeyaa loo isticmaala laakiin wax markay dhacayaan wax cajiib ahba is happening dhacaya something is strange is happening wax cajiib ah ama mucjiso ah ayaa dhacaya Mr. Fruit ninkii Mr. Fruit aha touches waxa uu taabanaya an apple tufaax buu sidaa u taabanaya the apple tufaaxi becomes waxa uu noqonayaa bad mid xumaaday tufaax nadiif uu taabana tufaax nadiif oo meel soo qabana waa xumaana tufaaxi then kadib he picks up wuxuu soo qabanaya haddana an orange buu soo qabanaya the orange becomes bad too sidoo kale waxay noqonaysaa bad oranjadii then kadib he picks up wuxuu soo qabanayaa some bananas xoogaa moos ah they become mooski waxay noqonayaan black way madoobaana mooski everybody laughs cid waliba waa ku qoslaysaa waxaana leeyahay look fiiriya at Mr. Fruit fiiriya he touches waxa uu taabanayaa the fruit miraha and it becomes waxay noqonaysaa bad mid xun Mr. Fruit looks waxa uu fiirinayaa at his hands gacmihiisa uu fiirinayaa and says waxa uu leeyahay what's happening maxaa dhacaya please Sarah fadlan Sarah please help me fadlan caawi Sarah ayaa touches waxa ay taabanaysaa an apple tufaaxi she picks up waxa ay soo qabanaysaa an orangeadi and some bananas iyo dhowr moos everybody says cid waliba waxay leedahay it's amazing waa cajiib Sarah touch waxa ay taabanaysaa the fruit miraha and it's okay ayuu noqonayaa mirihii markay taabato marka dadka dhan waxay leeyihiin we are going waxaynu doonaynaa to buy inaan ka iibsano our fruit miraheena from Sarah waan yara boobsiinaya xogaa ugu dheeraaday casharkii next year sanadkii xigay Mr. Fruit
ninkii Mr. Fruit ahay mudane Fruit ninkii ah mudane Mirole is Miss Fruit. Miss Fruit ayaa loo yaqaanaa markan. Miss waxaa loo adeegsadaa gabdhaha yaryar baa loo adeegsadaa oon weli aan guursan. Sarah is honest. Sarah waa daacad. Ninkii Mr. Fruit la dhihi jiray hadda waa Miss Fruit. Sarah is honest. She does not cheat ma qiyaamayso her customers macaamiisheeda. She always sells way had jeer iibisaa the correct weight miisaanka saxda ah. She sells waxa ay iibisaa good fresh fruit miro nadiif ah oo wanaagsan. And she understands waxayna fahamsan tahay business ganacsiga. Sarah is making Sarah waxay samaynaysaa a lot of money lacag fara badan. She has a good job now. Hadeer waxa ay haysataa shaqo wanaagsan. She has waxa ay haysataa a good job shaqo wanaagsan now hadeer. Sarah's father, Sarah aabaheedna stays waxa uu joogaa at home guriga. He cleans waxa uu nadiifiyaa the house guriga. He cooks waxa uu kariyaa the food cunada. And he is very happy. Aad ayuu u faraxsan yahay. Inta ayuu ku soo afmeerayaa iyadoo PDF groupka Telegramka kala dag commentiga ugu horeeya ayuu yaala linkiga groupka. Muuqaalka xigta Telegram waxaan idinka tagayaa sidaas iyo amaana Allah.